waxaa maanta halkaasi gaaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed socdaalkiisana waxa uu noqonayaa kii labaad oo uu ku tago Jigjigo muddada halka sano iyo maalmaha ah ee uu xilka ra'iisul wasaarenimo u hayo waxaana socdaalkiisaasi uu ku beegmay xilli maanta magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyay shir muhiim ah oo u dhaxeeya shacabka deegaanka oo isbedel loogu sameeyay xisbiga dowladda deegaanka Soomaalida kaas oo 12 sano kadib la bedelay astaanta iyo magaca xisbiga shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jigjiga waxaana halkaasi lagu doortay golo dhexe oo ay tiradoodu gaarayso 61 xubnood gudoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay Axmed Shide oo ah wasiirka dhaqaalaha dalkaasi Itoobiya in ka badan 2,000 ergo ay ka qayb gashay shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxaana codeyn xaq u yeelatay in ka badan 600 oo kaliya oo xubnood shirweynihii tobnaad ee xisbiga ee ka socday magaalada Jigjiga oo galay maalin saddexaad ayaa maanta lagu doortay 61 xubnood oo golaha dhexe ee xisbiga noqonaysa 2 sano ay soo socota ergada shirweynaha ayaa doorkan dib u qaabin weyn ku sameysay golaha dhexe meeshii uu 47 ka ahaa oo hadda ka dhigay 61 xubnood shirarkii hore xisbiga ayaa waxa lagu soo dooran jiray ugu yaraan 45 xubnood oo golaha dhaxa iyo in ka badan 10 xubnood oo guddiga fulinta ah balse shirweynahan tobanaad ergooyinkiisi ayaa cod aqlabiyada ku jaangooyay tirada golaha dhexe ee rasmiga ah inay noqdaan 61 xubnood golaha dhexe ayaa intaas kadibna iska sii dhex xulanaya xubnaha guddiga fulinta ah gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha xisbiga markii ay bilaabatay codeynta golaha dhexe xisbiga ayaa banaanka loo soo saaray warbaahinta waxa inta kadib loo doortay golaha dhexe xisbiga ku dhawaad 2 saac ay socotay codeynta golaha dhexe qoondada dumarka ee golaha dhexe xisbiga ayaa ah mid aad u yar iyadoo warbaahinta dibajooga ka ahayd kulanka bilowgiisii inkastoo mardame loo ogolaaday inay soo galaan madasha ayaa warbaahinta waxa uu warbixiyay sida ay u dhacday doorashada golaha dhexe wasiirka xiriirka arrimaha dawladda mudane Cabdullaahi Maxamed Mawlid bismillaahir rahmaanir rahiim saaka waxa bilaabantay doorashadii xubnaha golaha dhexe iyo musharaxiintii soo gali lahayd in musharaxiintii marka hore la soo dhigo waxa la isla qaatay 2 go'aan oo ah in xubnaha dhexe golaha dhexe laga dhigo 61 xubnood guddiga dabagalka oo laga dhigo 17 xubnood ayaa gurigu marka hore ansixiyay kadib waxa bilaabantay in musharaxiinta la soo dhigo xubnahaas u tartamaya 61 bos waa la soo dhigay si ka duwan sidii hadda hore gacantaaga ahayd waxa laga dhigay cod qarsoodiya marka haduu la yiraahdo taas la sameeyay oo kaga duwan tahay tii hore hadda ka hor sameeyay jiray geesooda xubnihii dumarka ahaa ee ka qayb galay shirkani oo RTN la hadlay ayaa gaashaan ku dhuftay isla markaas si kulul u dhaleelay qaabka loo sameeyay kuraasta golaha dhexe ee dumarka magacayga Faadimo Faarax waxaan ka socdaa jaamacadda Qabdahar doorashada xisbiga golaha dhexe la dooranay aad baan u faraxsanahay walow ay si u dhacday xaq ah oo ka maqan tahay qaybta genderka ay aad ugu hooseyso la gabdhaha la magacaabay meesha 61 ee ka ahayd gabdhaha la doortay 6 kama baneen ayaana yaala cabdi ergada cod kale baan ahay shirku si fiican uu socday doqomuhuna uu fiicnaa inkastoo dumarka barsantiga iyo doqomaha lagu yareeyay marka aad baan ugu faraxsanahay shir dhaxdhaxaad u ahaa xubno cusub way ku soo biireen oo wadanka wax ka bedeli kara deegaanka aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka jeclaan lahaa barsantiga dumarka ila noo kordhiyo 20% baad leedihiin baa la yiri boqolkiiba hadda boqolkiiba waxaan leenahay 10% ma dhanna 5% baan oran karaa waxa maanta la soo afmeeray shirweynihii tobanaad ee xisbiga deegaanka Soomaalida oo 3 maalmood u dambeysay ka socday xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxa maanta lagu doortay shirkani tobanaad ee xisbiga golaha dhexe oo gaarayay 61 xubnood inkastoo saameyn qaybsiga dhanka dumarka oo ku yaray boqolkiiba laga siiyay 5 taas oo ay sheegeen xubnihii ka qayb galay dumarka inaysan u cuntamin in golaha dhexe oo 61 xubnood ah in laga siiyo 6 qof Axmed Ibraahim Najaashi RTN xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida